soo dhawaada markana daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wararka bariga dhexe ayaynu barnaamijka gibi hamba ku soo qaadanaynaa waxaana isa soo taraya walwalka dagaalkan inuu baaho caalamka meel kasta waxa ka taagan qayladaan la xiriirta shidaalka hadda wadamada qaarkood waxay bilaabeen in shidaalka aan la siin ama lagu qaaliyeeyba gawaarida yaryarka ee raaxada waxa leeyahay gawaarida shaqada iyo kuwa ka shaqeeya magaalada gudaheeda ee dadweynaha kala daabula ayaa la siinayaa shidaalka sababtoo ah dagaalka waxa leeyahay farakamo qodna gobolkan bariga dhaxna waxa jirta halis weyn laakiin arrinka la isweydiinaya wuxuu yahay Soomaalida ma u diyaarsanta arrintan ma jira waxa nidaam ah oo shidaalka lagu nidaaminayo oo lagu talagalayo bal ugu yaraan meelaha muhiimka in shidaalka loo beeqaamiyo oo waxyaalaha bila macnaha ah shidaalka loo joojiyo la isticmaalayo waayo arrintan waxa leeyahay waa arrin halis ah xalay waxaynu ogeyn waxa dhacay madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay Iiraan waa si duqeyn doonaa kadib markii uu sheegay in la burburiyay boondadii ugu weyneyd haddaba maxaa ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey gaar ahaan weeraro ay qaadeen ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan aynu ku horumarno ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee waddanka Iiraan ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay qaadeen weeraro ka dhan xarun dhanka teknolojiyadda oo ay leedahay shirkadda Oracle ee Mareykanka laga leeyahay ee ku taal magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta weerarkan waa kii labaad ee ciidamada Iiraan ay ku qaadaan shirkadaha teknolojiyadda ee Mareykanka habeennimadii xaray ciidanka IRGC ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leedahay shirkadda Amazon oo ku taal waddanka Bahrain dhinaca kale warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ay soo rideen dayuurad dagaal oo dul maraysay gacanka gaar ahaan xuduudda Iiraan bayaanka ka soo baxay ciidanka Iiraan ayaa lagu sheegay in difaacyada cirka ay si guul leh u beegsadeen sida bayaanka lagu yiri diyaarad dagaal oo cadow oo ku sugnayd ama dul maraysay koonfurta jasiiradda Khashim inkastoo aan la sheegin in Mareykanka ama Israa'iil ay leeyihiin midkood laakiin taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa beeniyay wararkan sheegaya in diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay lagu soo riday jasiiradda Khashim waxaana warku taas ku daraya in warkan lagu tilmaamay inuu yahay mid been abuur ah sida dalka loo dhigay war kale oo dhanka Iiraan ka soo baxay oo aad u weyn gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Iiraan Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa ku nuuxsaday in 7 milyan oo qof oo Iiraaniyiin ah ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dagaal dhanka dhulka oo Mareykanku ku qaado Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan Qalibaf oo lagu tilmaamo in ay suurtagal tahay in Mareykanka uu la galo wada hadallo oo Mareykankuna ay daneynayaan ayaa inta badan wuxuu baraha bulshada ku soo qoraa hadallo adag oo ka dhan ah Mareykanka gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Qalibaf ayaa intaasi ku daray in muddo ka yar 7 olole qaran oo xooggan uu horseeday in ku dhawaad 7 milyan oo qof ay isu diiwaan geliyaan mutadawacnimo isla markaasna ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay hubka qaataan si ay u difaacaan dalkooda isla wararkan wakaaladda wararka Faris ee laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa soo xigatay taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee Iiraan kaas oo sheegaya in marin biyoodka Hormuz uu muddo ka xirnaan doono Mareykanka iyo sida hadalka loo yiri Sahyuuniyadda xagga Mareykanka mas'uuliyiin ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka oo la hadlay shabakadda Axios ayaa waxay sheegeen in boondadii shalay Mareykanku ay burburiyeen sababaha loo beegsaday ay tahay in laga hortago in ciidamada Iiraan ay hub isugu gudbiyaan waxaan intaasi lagu daray in la filayo in la beegsado boondooyin kale oo dheeraad ah Iiraan waxay sheegtay inay si adag uga jawaabi doonto weerarkan isla wararka Mareykanka markabka diyaaradaha dagaalka xambaaraha ee USS Gerald Ford ayaa la sheegayaa in isaga iyo raaxan maraakiib ah oo galbinaysa ay ka ambabaxeen waddanka Croatia
kadib markii halkaasi ay ku sugnaayeen 5 maalmood ee la soo dhaafay sida uu sheegay taliska ciidamada badda ee Mareykanka lama sheegin halka ay u jihaysteen maraakiibtan dagaalka ciidamada badda ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in markabkan uu diyaar u yahay fulinta sida hadalka loo dhigay hawlgal kasta oo loo igmado isla markaasna uu dhamaystirtay dayactir qorshaysan iyo sahay lagu taageerayo hawlihiisa markabkan ayaa door weyn ka qaatay duqeymihii xagga cirka ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan laakiin wuxuu aaday Greega kadibna wuxuu uga sii gudbay Croatia si dayactir loogu sameeyo kadib markii dab uu ka kacay qaybta dharka lagu dhaqdo 12 bishii March sida lagu sheegana waxa la yiri dabkaasi wuxuu ahaa mid dabiici ah laakiin Iiraan ayaa dhowr mar waxay sheegtay in ay beegsatay maraakiibta Mareykanka oo ka mid yahay markabkan iyo kuwa kale ee galbinaya wararka xagga diblomaasiyadda haddii aynu eegno danjiraha joogtada ah ee Ruushka u fadhiya qaramada midoobay Vasily Nebenzia ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Israa'iil inay joojiyaan dabka ay ku ciyaarayaan isagoo ku booriyay in la soo afjaro rabshadaha ka socda gobolka Bariga Dhexe isagoo ka hadlayay shirka golaha ammaanka ee ururka ummadaha midoobay ayaa waxa uu sheegay in korarka aan horey loo arag ee rabshadaha Bariga Dhexe uu saameyn ku yeelanayo dalal saaxiib la ah Ruushka sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka oo soo xiganaysa hadalkan uu jeediyay danjiraha Ruushka u fadhiya qaramada midoobay wuxuu sidoo kale tilmaamay in xaaladda hadda jirta ay si toos ah uga dhalatay sida hadalku uu yiri fal galdarro ah oo cudurdaar aan lahayn oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen dalka madaxa bannaan ee Iiraan hadalkan marka la dul istaago waxa la leeyahay Ruushka waxa isbedeshay siiqada hadalkiisa ayaantii hore wuxuu ka hadli jiray xaaladana hal la soo gabagabeeyo dagaalkan hal la xalliyo laakiin ereybu isticmaalay dagaalkan wuxuu saameyn ku yeelanayaa saaxiibadeena gobolka Mareykanka iyo Israa'iil dabaad ku ciyaaraysaan macluumaad waxaa jira sheegaya in Ruushka Iiraan uu siinayo waa midda koowaad xogta sirdoonka meel walbo ay duqeeyaan qasaare ay ka geysanayaan Sacuudiga waxaa lagu galay saldhig dhan oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin diyaaradihii dagaalka kuwii sirdoonka xarumo muhiim ah waxa leeyahay meel walba oo ay doonayso Iiraan inay duqeyso way duqeyn kartaa hadda marka waxa leeyahay macluumaadkan waa dhanka sirdoonka Ruushka siinaya Ruushka markaas arintan wuxuu ula leeyahay Mareykanka sooma siinayo xog sirdoon Ukraine marka sheekadu waxay noqotay adigana markaaga hoo baaruudda waxa kaloo leeyahay diyaaradahan hadda la soo ridayo oo labadii toddobaad ugu dambeeyay dagaalka la sheegay in la soo riday waa gantaalo dhanka ka yimid Ruushka wali waxa leeyahay hadda waxa sii daran gantaalo garbaha laga ridayo oo Shiinuhu uu siiyay Iiraan oo loogu talagalay dagaalka dhanka dhulka helikobtarada iyo diyaaradana xal aan ka warramaynay ee leeyahay A10 haddii waxa la yiri marka diyaaradahaasi oo dhan ay soo galaan hawada waa hoo baaruudda sheekadu marka sheeko ciyaar ma aha hadda ka horna maxaan idin soo gudbinay safiirka Ruushka u fadhiya magaalada London oo warbaahinta u sheegay dagaalkan inaysan ka noqonin dhexdhexaad macnaha anagu dhexdhexaad waxa yiraahdo dagaalka ka noqon mayno si cad baan u taageerinaa Iiraan ayuu yiri marka sheekadan waxay u muuqataa waa la dabaqtamaya soo Mareykanku gantaalada Atomax iyo Himares iyo kuwa kale oo farabadan ma siin Ukraine Ruushka adna markaaga weeyay marka sheekada waxaan u gudbaynaa warbixin la xiriirta FBI-dii loogu talagalay dambiyada inay ka hortagto ayadii baa loo dhacay see wax u jiraan sheeko cajiib ayaan idin haynaa waxaan kaloo idin haynaa Trump oo la weydiiyey haddii aad nabad qaadato Israa'iil ma aqbali doontaa muxuu ku jawaabay sheeko cajiib ayaan idinkaga haynaa qodobkaasina intaan u gudbin wararkaas iyo kuwa kale waxaynu eegaynaa hay-addii dambi baarista ee Mareykanka ayaa loo dhacay waa FBI-dii waxa leeyahay marka yeemaan ah geel lagu amaan helayaaba haddii FBI-da loo dhacay aynu eegno haddaba sheekadan iyo waxa laga qoray hay-adda dambi baarista waddanka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo FBI ayaa ka digaysa khatar cusub kadib markii mid ka mid ah nidaamyadeeda kormeerka iyo la socodka la jabsaday
sida ay shaacisay shabakadda Politico ee laga leeyahay waddanka Mareykanka oo macluumaadkan faafisay. FBI-da ayaa u aqoonsatay jabsigan nidaamkeeda kormeerka dhacdo halis ah oo khatar ku ah amniga qaranka ee waddanka Mareykanka, sida Politico ay ku waramayso iyadoo soo xiganaysa ilo xogogaal ah. wargeysku waxa uu sheegay in toddobaadkii hore FBI-du ay ku tilmaamtay weerar dhanka internetka oo lala xiriirinaya Shiinaha in lagu beegsaday mid ka mid ah nidaamyada sirdoonka ee hay'adda, kaas oo lagu sheegay inuu yahay markaasi falkaasi dhacdo weyn, isla markaasna macnaheeda ay tahay in khatar weyn ay ku wajahan tahay amniga dalka Mareykanka. ugu yaraan 3 qof ayaa waxay u xaqiijiyeen wargeyska dhacdadan, kuwaasi oo codsaday in magacooda aan la sheegin sabab la xiriira inaysan fasax u haysan inay la hadlaan warbaahinta. macluumaadka ay waxay muujinayaan in jabsashadu ay si guul leh u heshay xog sir ah oo aad u badan oo toos ah oo u kaydsan nidaamka FBI-da. FBI-da ayaa ka gaabsatay inay wax faalaha ka bixiso dhacdadan mar shabakadda Politico ay la xiriirtay. ilawareedii ayaa waxay sheegeen in Shiinaha looga shakisan yahay inuu ka dambeeyo weerarkan, inkastoo aan la bixin faahfaahin gaar ah. dabayaaqadii bishii March ee aynu ka soo gudubnay, FBI-da waxay ku dhawaaqday inay bixinayso abaalmarin dhan $10 milyan oo la siinayo cid kasta oo bixisa macluumaadka ku saabsan dadkii ka dambeeyey in la jabsado akoonka emailka madaxa FBI-da Kash Patel, iyadoo koox Iiraan la xiriirinayo oo lagu magacaabo Hanzala ay sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. sheekadu markuu isbedeshay, FBI loo dhacay, ayadii laftigeedii waa loo dhacay, markaasaa la qoftay. weli waxaa leeyahay macluumaadyo sir ah ayaa lala baxay, weli lama sheegin waxa ay yihiin. waa hagaag wararka Iiraan aynu dib ugu laaban, waxaa soo kordhay war weyn. waxaa laleeyahay markabkii Abraham Lincoln mar kale ayaa jugta laga saaray. haddaba aynu eegno warkan warbaahinta Iiraan saacadihii ugu dambeeyey ay daabacday. ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay in ay fuliyeen weerar taxan ah oo lagu beegsanayay saldhigyada Mareykanka iyo kaabayaal kale oo Mareykanku uu ku leeyahay gobolka, taas oo qayb ka ahayd howlgalka ballanqaadka dhabta ah. ciidamada IRGC ayaa waxay sheegeen in 4 gantaal oo nooca cruise-ka ah, gaar ahaan gantaalka la yiraahdo Khadar 380 ay ku beegsadeen markabka dayuuradaha dagaalka xambaara ee Abraham Lincoln, kaas oo ku sugnaa waqooyiga badweynta Hindiya. Mareykanka war lagama hayo, warkan Iiraan baan ka haynaa oo kaliya, laakiin ma ah markii ugu horeysay la beegsado. markabkan waa iskaga cararay badda cas, Hormuz, gacanka cadmeed, sidoo kale wuxuu ka cararay xitaa badda Carabta iyo gacanka Cumaan. badweynta Hindiya ayuu joogaa. waxaa laga yaabaa Soomaaliya kor inuu joogo markaan oo kale, aaga meelaha iskaga darsamaan badda cas iyo badweynta Hindiya, laakiin halkaas ayaa looga daba tegay. gantaalka Khadir 380 ayaa lagu duqeeyay, 4 xabaa lagu riday sida Iiraan sheegayso. waa hagaag ugu dambeyntii madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la weydiiyey haddii aad nabad ku dhawaaqdo iyo xabad joojin, Israa'iil ma aqbali doontaa? muxuu ku jawaabay? aynu eegno warkaas amurtana iyo wixii laga qoray. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay samayn doonto wax walba oo ay tahay in ay samayso ee uu sheego. Trump ayaa wuxuu yiri Israa'iil waa saaxiib fiican oo la shaqaynaya maamulkayga, laakiin waxa aan u sheego way yeeli doonaan. waraysi uu siiyey majallada Time ayaa waxantaasi uu ku daray in ay joojin doonaan dagaalka marka isagu uu yiraahdo hal joojiyo. wuxuu yiri haddii anigu aan dooran dagaalka inay joojiyaan way sii wadi doonaan biir, laakiin marka aan doorto way joojin doonaan. waa sida hadalka u dhigayo. waayahay sheekadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijka. warninku faan weyna